Assalaamu calaykum. Waxaan dhisaynaa qaybteena koowaad casharkeena waxaan ku baraynaa projectigan shaashada ka muuqdo inaan dhisno. Waa crude application aan ku dhisayna Flask iyo sidoo kale Bootstrap. First marka waxaan ka bilaabaynaa marka projectigeeni intaan horta u gudbin qaabka uu egyahay waxaan horta samaysanaynaa projectigeeni Flask ayaan samaysanaynaa. Habeen hore waa kasoo hadalnay inaan folderku ka bilaabid folder inaad diyaarisid. folderkaas magaca wala baxeynaa waxaa leenahay tusaale ahaan okay waxaa leenahay user app oo kale iska dhiganaa user app markaas ka dhahno waxaa leenahay enter aa leenahay kadib markaas waa iskasii gudaha usii gelaynaa select ayaa leenahay ugu horreyn folderkeeni waa samaysanay kadib shaqada nagala baahan maxaa kamid ah shaqada looga baahan waxay tahay Flask waxyaabahaas inaad ku shubatid. Flask inaad ku shubatid waxaa ka horeyso inaad virtual environment aad dhisatid kadib Flask aad ku shubatid. Habeen hore casharka qaadayna waa waxaa leenahay control waxaa leenahay backtick ayaa leenahay shortcut-ka terminalka lagu furo waaye saa ujeedaan terminal ayaa noo soo furmay. terminalka marka waxaa qoraynaa habeen hore kasoo hadalnay qaybtan waxaa leenahay Python ayaa leenahay kadib waxaa leenahay virtual environment env ayaa leenahay okay waxaa ka horeysa laakiin dash m kadib waa leedahay virtual environment env kadib waxaa leenahay env-ga magaca wala baxeeno magaca rabtaa meesha iska dhigi kartaa intaa u dameyso qasab ma env inaad tiraahdo laakiin waxaa common oo laisla yaqaanaa env waa laisla yaqaana waa magaca laisla yaqaana waa laakiin magaca rabtaa ka dhigi kartaa env 1 2 3 aa samaysan kartaa okay intaas markaa dhahno waxaa leenahay enter ayaa leenahay markaas kadib hadaa fiirno waxaana loo sameeyey aan soo dhaweeyo saa u aragtaa marka waxaana loo sameeyey env-gii ayaana loo sameeyey markaas oo virtual environment-gii ayaana loo sameeyey laakiin hadda waxba kuma jiraan waxaa ku jira bis scriptigan waxyaabahan bisa ku jiro laakiin wax library ah oo ku jiro ma jiro oo hadda inaan ku shubanaa rabnaa library waxaa ka horeysa marka in activation aan ka dhigno inaan active aan dhahno active saa u dhahaynaa active inaan dhahno waxaa ka horeeya habeen hore folderkan groupkan oo soo dhigay qaabka markaa intaa waxay tahay markaa samaysanaysid waaye active markaa kadhigaysan intaan isticmaalaysaa intaa marka wuxuu yeelayaa markuu kaa xiran yahay waaye security hadduu security-ga uusan kaa xirnayn intaan kuuma shaqeynayso errors ayuu kusoo qorayaa marka security markas laba nooc marka inaad security-ga aadan xirin laakiin koodkan aad isticmaashid oo saas aad ku active ku dhigatid inaad gebi ahaanba iska xiratid gebi ahaan security inaad iska xiratid security saa iskaga xiraysaa wuxuu leeyahay wax loo yaqaano PowerShell ayuu leeyahay hal mar haddaan iso waxaa leenahay window r waxaa leenahay okay PowerShell aad soo gelaysaa PowerShell meeshan aa lahaa daartid search ku qor kartaa PowerShell aad soo geli kartaa PowerShell-ka markaan soo galno waxaa hubinaynaa marka in uu security-ga qaybta uu furan yahay saa ku hubinaynaa waxaa qoraysaa commandigan qoraysaa commandigan oo ah get dash extension policy ayaa qoraysaa kadib waa fiirinaa ku dhufanaa haddaa aragta markaas inuu yahay restricted haduu yahay waa macnaha waxaa uu xiran yahay waa markaas haddaa aragta markaa waa iska xiraysaa marka waxa restrict iga xiraa leedahay kadib markaa iska xirtid cilad kuma qabsan doonto oo sidaana isticmaali kartaa active markaas uu kuu shaqeynaya env script active dad hore kaa shaqeynaya oo policy kuma qabsanaya marka qaybtaas waa gebi ahaanba saas iskaga xiri kartaa marka hadduu ogaana restrict waayo soo ma saa iskaga xirna markaas oo waxaa dooraynaa intaana dooraynaa kadib inta markaa doorno waxaa la marka qaybta maxay tahay policy markaa dooranay current userka waxa userka hadda oo la isticmaalayo computerkan oo hadda ka kacsan userka hadda userkan ii kacsan waa Axmed waa userka marka hadda la joogo waxaa leenahay marka extension policy-giisa execution policy-giisa waxaa leenahay remote signed markaas in oo signed lagu sameeyo hadda marka kii hore aan soo celino waa kaa mujda remote signed marka awood uu leeyahay inuu wax bedelo waa macnaheedu
laakiin marka restrict marka userka uu xiraya waxa ma bedeli karo ma furi karo hadda laakiin waa u furnay qaybtaas marka waxaa inaad furatid restrict hadda kan caadi ah tooskaas hadda wuu noo shaqeynaya hadda activationka aad tagno si aan rajeynayo waxaana env okay maarata hore nooga shaqeeyey laakiin habeenada hore waxaa isticmaalaynay koodkan aan isticmaalin maanta oo dhan waa fureynay haddana kan kale isticmaalaynay howl labadaas howl markasta ku laalaaban laakiin hadda marka dambe isticmaali mayno oo env-ga caadiga ayuu si toos noogu shaqeynaya laakiin hadda window 10 waxaa isticmaalaysid order kugu shaqeynaya oo hadda intaa qortid activation ku yahay policyga ma xirna laakiin E11ka xogaa way xireen si security loo ilaaliyo okay hadda env-geeni active waa ka dhiganay env-ga marka active ka dhiganay calaamadaas ku kareynaa oo cagaarka env ayaa soo hormaraysa cagaar ah hadduusan active ku ahayn laakiin ma soo hormarayo ama cilada uu kusoo qoraya marka hadda env-gina uu shidan yahay waa active kadib marka waxaa ku shubi karnaa marka hadhow waxaa ku shubtana intaa ka ogaanaysa aye waxaan ka bilaabaynaa wax loo yaqaano flaska ku shubeyna waxaa pip alenahay waa package managerka oo python kala isticmaalo waxaa lahaa pip ayaa lahaa waxaa lenahay install direct ayada usoo gaabi kartaa bis kadib qasab baa inaa install aa qorti ayada tiraahd waa uu fahmaya marka waxaa lenahay markaas flask pip install flask aa leedahay flaski okay waa ayada wuxuu leeyahay ma aqaano waa iska dhamaystireynaa waxaa lenahay install waxaa lenahay flask okay waxa soo qaldaya package managerka oo javascript ase ayada tiraahd uu yeelaya laakiin pythonka ayada inaa install caadi qorto ka rabaa marka hadda waa flaskigeena wuu ku shubmay dhammaan waxay flaska ugu too dhan waa lagu shubay last versionkii 24 waaye wuuna ku dhacayay waa success waa marka intaa ka hubinaynaa markaas flaski inuu soo galo qaybta scriptiga waa kana marka waa ku guuleysanay inaan virtual environmentgeena aan ku shubno flask waa hagaag marka intaas marka waa iska xireynaa markaa iska xirno waa virtual environmentgeena waa sameynay waana packagekeeni flaskina waa ku shuban lisenka marka wuxuu ka hadlaya marka waa table waaye xog soo bandhigi doona hadhow xogtan waxay ka imaan doontaa database ayay ka imaan doontaa oo mysql si loogu shubta ayuu video telegramka soo dhigay waa daawanaysa waana ku shubanaysaa xiista soo socoto saa ugu xirno marka hadda xogtan si toos database ugu imaan waa xog la geliyey laakiin hadhow si toos waxay ugu imaanaysaa databaseka lagu xiriiriyey formkan oo tablekan halkaas marka xogteen ayaa soo gelaysa marka hadhow marka waxaa sameyn karnaa edit inaan ku sameyn xogta ka bedelno databaseki inaan xogta ka saarno databaseki anagoo UI-gan isticmaalayno sidoo kale wuxuu leeyahay meesha kore wuxuu leeyahay button ayuu leeyahay buttonkaas waxaa ku qoran add new user cusub in la soo geliyo markaa keli ku siin waxaa soo baxaya waxa loo yaqaano modelkan soo baxayo modelkan wuxuu awoodaa inuu xog la soo geliyo xogta marka la soo geliyo marka xog la soo geliyo haddana xogta marka la soo geliyo wuxuu leeyahay meeshan selection ayuu leeyahay waa la dooranaya kadib safe ayaa lahaya xogtan waa la diraya waxaa loo diraya from databaseka loo diraya safe marka wuxuu kasoo muuqan doonaa meeshana soo geli doonaa marka waxyaas flaska noo qaban doono oo qaybta back endiga ah marka intaa back endiga loo gudbin waxaa horta qasab inaa userkan aa haystid oo UI-gan formkan iyo modelkan inaa haystid oo ku diyaarsan yahay haddaa marka hore u taqaanay htmlka kuma dhibeyso waad diyaarsan kartaa ani form ani dashboard oo kale waad diyaarsan kartaa hadhow marka just waxaad baran doontaa si databaseka flaska loogu xiro waxyaabahaas baranayna okay marka qaabka loo diyaariyo marka lisenka marka wuxuu ka hadlaya marka waa table waaye xog soo bandhigi doona hadhow xogtan waxay ka imaan doontaa database ayay ka imaan doontaa oo mysql si loogu shubta ayuu video telegramka soo dhigay waa daawanaysa waana ku shubanaysaa xiista soo socoto saa ugu xirno marka hadda xogtan si toos database ugu imaan waa xog la geliyey laakiin hadhow si toos waxay ugu imaanaysaa databaseka lagu xiriiriyey formkan oo tablekan halkaas marka xogteen ayaa soo gelaysa marka hadhow marka waxaa sameyn karnaa edit inaan ku sameyn xogta ka bedelno databaseki inaan xogta ka saarno databaseki anagoo UI-gan isticmaalayno sidoo kale wuxuu leeyahay meesha kore wuxuu leeyahay button ayuu leeyahay
buttonkaas waxaa ku qoran add new user cusub in la soo geliyo markaa keli ku siina waxaa soo baxaya waxa loo yaqaano modelkan aa soo baxayo modelkan wuxuu awoodaa in xog la soo geliyo xogta marka la soo geliyo marka xog la soo geliyo haddana xogta marka la soo geliyo wuxuu leeyahay meeshan selection ayuu leeyahay waa la dooranaya kadib save ayaa lahayaa xogtan waa la diraya waxaa loo dirayaa from database ka loo dirayaa save marka wuxuu kasoo muuqan doonaa meeshana soo geli doonaa marka waxyaabas falaska aan noo qaban doono oo qaybta back endiga ah marka intaa back endiga loo gudbin waxaa horta qasab inaa userkan aa haystid oo UI-gan formkan iyo modelkan inaa haystid oo ku diyaarsan yahay haddaa marka hore u taqaanay HTML-ka kuma dhibeyso waad diyaarsan kartaa ani form ani dashboard oo kale waad diyaarsan kartaa hadhow marka just waxaad baran doontaa sida database-ka ee falaska loogu xiro waxyaabahaas baranayna okay marka qaabka loo diyaariyo marka waxaa isticmaalna marka bootstrap waa isticmaalaynaa waa bilaabeynaa markaan imaano marka ugu horeysa horta inaan dhisno falaskii appkeeni inaan dhisno waxaa leenahay app.py ayaa leenahay kadib enter aan leenahay intaa markaan enter dhahno waxaa dhisaynaa appkeeni falaska waa naqaanaa hore u soo dhisnay saa marka waqti noogu save gareyno halkaasaas ku qorina marka waa appygi waa qornay waa intii xawin hore soo aragnay waa from flask import flask inaan soo import gareyno inaa instant variable app ka samaysano oo galaaska ugu wacno rootkan oo rootka ugu horeeyo inaan samaysano oo home root la dhaho kadibna inaan samaysano kadib markaa intaas appku noo diyaarsan yahay waa iska xiranaa qaybtan waxaa rabnaa marka inaan samaysano markaa UI-ga HTML iyo waxyaabaas inaad ku xirto markaa u baahan tahay oo falaska isticmaalaysid waxaa qasaba inaad samaysid waxaa loo yaqaano folder loo yaqaano template kaasoo marka waxyaabaha HTML-ka waxyaabaha la xiriiro dhan aad dhigi doontid pageska iyo HTML-kii haddaad react samaynaysid hadda framework kala isticmaalaysid waxyaabahaas oo dhan template-ka ay soo galayaan marka waa halka react uu ka isticmaalayo component folder uu isticmaali jiray kan wuxuu isticmaalayaa template folder loo yaqaano marka new folder aan leenahay folder cusub kusoo dareynaa oo HTML-keeni waxyaabahan dhan noo geli doono oo pageskeeni noo geli doono waxaa leenahay templates ayaa leenahay waa iska saxaysaa qoraalka hadduu qoraal kaa qaldan yahay amanahan oo kale iyo waxyaaba aa qaladid hadhow kuma shaqeyn doono waa in templates ay u qornaataa enter aan leenahay marka templatekeeni aan diyaarinay kadib templatekan marka waxaan dhex gashanaynaa waxaan ka dhex samaysanaynaa file HTML waxaan iska leenahay index.html haddii marka filekaas oo banaanadan uu yaalo hadhow serverka ma soo qaban doono serverka keliya wuxuu soo qaban doonaa wixii halkan template ku jiro ayaa laga wici karaa rootkan marka functionka loo waco oo wuxuu templateka ayuu kasoo heli doonaa marka inta magaciisa sheegtay templateka haduu ka waayo ma soo qabanayo hadduu meelahan kala yaala marka cilada iska ilaali marka templateka waa inaad dhex gelisaa wixii HTML oo dhan aad u waca doontid HTML-ka waxaad dhex gelin doontaa templateskan waa hagaag marka templatekan marka waxaa rabnaa in aan ku xirno appkeena marka intaa ku xirno horta templatekan ayaa waxaan wax geliynaa horta code ayaa ku qoraynaa templatekan ayaa waxaan ku qoraynaa codeka marka waxaa bilaabna marka bootstrap inaan ku qorno oo bootstrapkeeni aan tagno bootstrap websitekeena tegayna waa kana waxaa leenahay bootstrap.com get bootstrap.com adaa google ku qortid websitekana uu ku keenaya marka websiteka bootstrap oo good waaye waa hagaag markaan bootstrap soo galna talaabada koowaad qaadan waxay tahay waxaa tegaynaa meeshan ku qoran tahay docs ama documentationka markaan soo galno waxyaabaha u baahan oo dhan intaa ka helinaa marka wax kasta aan u baahannahay halkan ayaa kasoo qaadanaynaa halkaasaa geysanaynaa marka waaw laftirkeeda waa ka baran kartaaba from bilow introduction oo ka bilaabaya ilaa layoutskii contactkii formskii waxyaabihii oo dhan halkan ku siinaya marka waana aad ka barataa kasoo koobiyeysanaysaa isticmaalaysaa markaas marka introductionka qaybta hore ka bilaabayna qaybta hore marka bootstrap waxyaaba uu sharxaya anaga ma rabno waxaa soo koobiyeysanaynaa laba qayb uu leeyahay index.html oo soo qaadan doontid kan marka wuxuu ku siinaya marka viewport waa bootstrap oo keliya waa oo qaleyl ah ma laha markaas bootstrap linkeeda kuma dhex jiro
midkaan markaa soo qaadana kanaa soo koobiyeysanaa labaad meesha calaamadda copy ku qoran tahay ayaa dooranaynaa marka kan waxaa ku jira marka waxaa include waxaa kamid ah bootstrap css co iyo javascript labada wuu isla wataa marka midkaa rabna kan waa marka labada linki oo waxaa ku xiran oo bootstrap iyo waxaa ku xiran iyo javascript copy aa lena markaas dad qaar marka waxay samaystaan inta waxay isku qortaan waxay dhahaan shift one html-kan caadi u qortaan kadib ay linkiga soo koobiyeysta halkaan dhigtaan kan kale halkaan laakiin waxaa ka fudud inaan macala kiis dhan inta kasoo koobiyeysano hal mar inta past ku dhahno failkan ebra okay waa intaas marka waxaa kaloo markaa inta hadda marka intaan rangareynin waxyaabaha extensionka u baahana waxaa kamid ah extension waxaa jiro oo loo yaqaano bootstrap oo midkaan hadda aniga ugu jiro waxaa la bootstrap 5 waa quick snabet marka hadda 1 million iyo above ayaa degsaday marka wuxuu qabanayaa kan markaas waxyaabihii aad rabto dhan waxa yar qoraysaa wuu ku siinayaa marka short yar qoraysaa bs5 oo kale b5 aa qoraysaa haddaa button rabtid haddaa form rabtid automatic waa uu ku dhamaystiraya completion waa marka aad ku anfacaya markaas inaad adeegsatid okay intaas marka laga soo gudbo waa iska xirina markaas extensionkaas haddaa ku shubatid hadhow videoga saa u dhex aragtid markaas aan tagno meesha okay marka waxaa ku xiran marka hadda waxaa ku qoran hello world aa ku qoran oo bootstrap ah marka waxaa rabnaa marka in aan ka dhex wacno aan ku xirna aan leenahay appkeena saa ugu xiraynaa appkeena saa ugu xiraynaa habeen dhexaas aan sheegnay markii la rabo in appka lagu xiro indexka html-ka lagu xiro maxaa loo baahan yahay hal mar meeshan aa imaanaya in lala socdo aye yaa hal mar halkaas fahamsan oo soo baraatigeeyey habeenka casharka dhaweed ustaad waa maqshaa maano waa ku maqla ustaadi engineer to kula socdaa si fiican dadka waa saaranahay koodkan waa sameeyey kulle I think kulle ay shaqeynayaan marka markii loo baahan yahay in lagu soo xiro page html ah waxaa isticmaalaynay library lahayo render templates asoo import gareyneen okay xagga sare waxaa ku daraynaa waxa loo yaqaano render template ku darnay okay aye kadib markii hadda oo salaan fashionka aan sameynay return hello world masha ka dhigayna return waxaan leenahay render template kadib page-ka magaciisa waa baasayna okay halkaas hello world iska dareynaa sax waa tiriya marka render template magaciisa oo library okay then waxa baasaysaa marka page-ka magaciisa baasaysaa okay waxaa leenahay index.html marka automatic asaa marka page-ka template kusoo aqrisanayo okay page-ka soo aqrisanayo aad u mahadsan tahay waa intaas weeye inta hadda aan sameynaba marka waa sii wadayna marka intaas hadda oo injineerka sheegay waaye marka halkaa hadda waa ku xirnay kadib marka waxaa waa save gareynaynaa markaa save gareyno serverkeena aan kicinaynaa waxaan rabnaa marka in uu halkan kasoo kaco oo hello world oo soo muujiyo oo h1 marka run ayaan leenahay appkeena tegaynaa waxaan leenahay run waa la rengareeyey serverkeenii kadib waxaan leenahay oo ku dhufanaynaa waa kana marka hello world oo bootstrap oo wadato oo habaysan ayaa noo soo baxday markaas marka waxaan gelaynaa marka howlahayna kala gelaynaa shaqadayna kale ayaan gelaynaa markaas inaan xogtan aan dhisno ayna sida hadda inta aan sameynay ayaan sameynaynaa markaas oo weliba qaab fudud ayaan sameynaynaa marka fast marka waxaan ka bilaabaynaa marka halkan aan iska xiro appkeena intaas appkeena noogu xiriirsan yahay waxa ugu baanin serverkan uu noo daaran yahay marka fast marka waxaan ka bilaabaynaa halkan h1ta dhexdeeda waa iska tiraynaa hoos waxaa meesha iska yaraskenaynaa meeshan waxaa ka bilaabnaa marka ugu horeysa horta container waxa la dhaho inta badan waxay isticmaashaa bootstrap container waa glass aa u bacanaysaa
galaas markaas way habaysan yihiin waxaa wacaynaa waxa loo yaqaano container tab ayaa leenahay markaan dhahno containerkan waa hadda galaaskan aan wacno waa bootstrap oo container oo habaysan oo centerka yaalo paddingkiisi waxyaabihiisa dhan wato waa marka dhexdiisa marka waxaa gashanayna marka containerkan waxa loo yaqaano row tusaalahaan oo kale intaan hadda containerka aan sameyno waa intaan waa wareegan waaye oo caddaanka ayaa containerka aan sameyna hadda marka containerka marka waxaa nagu dhex jiro manager user ayaa ku jira oo tag h4 tag ah iyo buttonkan oo geeskan yaalo intaas wuxuu ku jiraa marka rowgan koowaad ayay ku jiraan row waxaa lahaa waa jiifjiifkana lahaa rowga labaadna marka waxaa ku jiro tablekan ku jiro rowga labaad waxaa ku jira tablekan marka containerkan marka laba row ayaa ku jiro laba row aa ku jiro rowgan kale marka column ayuu leeyahay selektarkiisi rowgan asana wuxuu leeyahay column ayuu leeyahay oo columnkaas waxaa ku jira marka manage user iyo add button marka rowgan ayaa samaysanayna marka koowaad waxaa leenahay marka dot row ayaa leenahay rowgaas markaa samaysano rowga maxaanu dhex gelaya marka waxaanu dhex gelaya wax loo yaqaano waxaa leenahay div ayaa leenahay galaas ma siinayno divs marka waxaa dhex gashanaynaa h4 ayaa dhex gashanaynaa waa ku qorayno waxaa loo yaqaan manage waxaa leenahay manage users hadda hadda inta safe aa dhahno aan ku laabano qaybteeni refresh aa dhahno waxaa soo galay manage user aa soo galay sidoo kale manage user markuu soo galo manage user waxaa siinaa laftirkiisa color aa siinayna colorkaas u siinaa glass waa inaa wacanaa glasskaas marka waxaa ku dhex qoraynaa text aa leenahay sidoo kale textigaas waxaa leenahay marka primary text waxaa leenahay primary waa primary color waaye color blue ayuu siinaya markaas haddaa fiirno primary color blue ayaa la siiyey marka galaaskaas oo blue ka dhigayo ayaa wacanay inta markaa kasoo gudubno qaybta marka qoraalka waa gelinay rowga maxaa kaloo dhex gelayo rowga marka waxaa dhex gelaya markaas rowga marka rowgan hadda aan sameynay waxaa ka horeeya marka intaanan rowga aan u gudbin waxaa ka horeeya column inaan samaysano markastoo row aa samaysid column aa samaysana column waxaa laga marka qaybtan hadda laba column waa haddaa fiirno columnkan oo manage user ku jiro iyo columnkan oo ku jiro buttonka haddaadan column aa dhex gelin oo rowga dhex qortid hadhow inaa isbabar dhigtid oo gees iyo gees ay kala tagaan makuu suurtagelayso inay gees iyo gees kala tagaan makuu suurtagelayso sababta hal meel oo ku wara jiraan markasta isku dhinac dhigayaan sababta oo kala fogeynaysa waxay tahay waa laba column columnkan ilaa intaanu haystaa kala bar ayuu haystaa kan kalena kala bar haystaa marka ilaa intaa asaa ku dhex siki karo kan kale ilaa intaanu ku siki karaa marka waxaa samaysana marka column ayaa samaysana marka row samaystid markasta row aa samaystid waa inaa column aa samaysataa oo rowga dhexdiisa gelayo marka rowgi waa qornay waxaa qoraynaa marka waxaa leenahay dot aa leenahay column ayaa leenahay column markaa dhahno columnka marka waxaa dhex gashanaa marka inta data aa qorayna marka inta data aa qorayna oo h4 kaas ayaa dhex gashanayna marka columnka marka waxaa ku daraynaa marka hadda inta save karina aa fiirno waxa isbedela malaha laakiin hadhow marka wax ku dardarno ayaa isbedel arkaynaa marka columnkan maxaa laga rabaa marka inaan ka dhigno columnkan waxaa ka dhigaynaa marka waxa loo yaqaano cabiraa siinaynaa oo large la dhahayo shaashada dhan inuu qabsado 12 aa leenahay 12 aa leenahay intaas markaa dhahno sidoo kale columnka gudihiisa anagoo ku dhex jirno haddana waxaa sameynaynaa buttonkii aa sameynaynaa oo geeska ahaa buttonkii geeska ahaa ayaa sameynaynaa waxaa imaanaynaa marka isla columnka gudihiisa anagoo ku dhex jirno ayaa waxaa imaanaynaa markaas waxaa samaysanaynaa div kale ayaa samaysanaynaa waxaa dhex gashanaynaa marka button ayaa dhex gashanaynaa marka diftaan kale button ayaa dhex gashanaynaa waxaa leenahay markaas button ayaa wacanaynaa waxaa leenahay buttonkaas waxaa u baxsanaynaa add new user
safe aa lena marka hadda batanka wax booster kuma dirin marka hore inaan aragnaa rabnaa si uu ekaanayo waa batan qaleel oo html ah markaas marka waxaan ku daranaa bootstrap glass oo noo qurxinayo marka waxaa imaanaya marka batan gudihiisa imaanaynaa waxaana marka glass ayaa leenahay kadib marka waxaan rabnaa inaan batankan ka qabano batanka waxaan ka qabanaa waxaan leenahay btn waxaan leenahay glass law aan ku daraynaa kadib haddana waxaan kusii daranaa btn glass kale oo kalarka bedelayo oo dhahayo primary okay glasskana iska saxa qoraalka waaye primary inta markaan waa save garaynaa waxaa leenahay refresh daafir mujida glasska waa nagula daray hadda intaan css aan qori lahaa kood badan iga qaada lahayd background colorkii fontigii border radiuska wareega waxyaaba badan inaan qorqoray noqon lahayd laakiin hal glasskaas bisa u wacday oo batanka ah iyo glasskan kale oo kalarka bedelaya bis java waa lii qurxiyey shaqadaas batankaas oo diyaarsan ayaa la ii sameeyey marka hadda marka batankeenan iyo kan waxaa rabnaa marka in aan laba gees kala geeno geeskan iyo geeskan aan kala geeno ayaa rabnaa intaa horta gudagelin horta backgroundkan iyo background containerkeena waa isku eg marka horta taas inaan waxaa xalina waa saa u aragna horta waxyaabaha keeni kala saa u aragna backgroundkan gadaale ayaan bedelaynaa marka koowaad backgroundkan ayaan bedelaynaa marka koowaad backgroundka marka bedelana ogaanina sababta hadda intan cadaan waaye way isku egyihiin marka containerkeena intuu ku egyahay horta bis inaan ogaana rabnaa containerkeena cabirkiisa intuu ku egyahay sida kan oo kale saa u ogaana kor iyo hoos intuu ka durugsan yahay waxyaabahaas oo dhan marka waxaan tegaynaa meeshan ay ku qoran tahay baadiga korkiisa tegayaa waxaan ku qorayaa style aan ku darsanayaa style oo css-kii caadiga css caadiga samaysanaya oo anin gacantii ku qoraayo ko waxa wacanaa baadiga wacanayna baadiga markaa wacano waxaa leenahay background colorkiisa color codekaan siinayaa waxaa leenahay 0301 waxaa leenahay E3A oo colorka hadda bluegan oo ah color codekaan safe aa leenahay horta backgroundkaas keena hore u ekaysiinayna horta safe markaa dhaho okay hadda markaan aragno hadda kan markaa bedelnay kan background ma laha marka containerkeena hadda aa wacnay asane wax background ma laha containerkeena asane waxaa leenahay background aan siinaynaa waxaa leenahay containerkeena waa kana glasskan waaye glasskaas waxaana dot waxaa leenahay markii siis la wacayo dot laga hormariyo container waxaa leenahay asna waxaa leenahay background colorkiisa waxaa leenahay asna waxaa ka dhigtaa caddaan ff askalena marka هذا مركب كلا بحا يا مرك هذا هذا كونتينر كاسمينو انت سوكو يابس انت سحوك تسوكو جرت معيش سوش جوغان كونتينر دا مقشد وانتس هذا بيج كا HTML كا دن وماشان بلو كا وبادي كدن لكن كونتينر كا بس اسمينه انت وعدان كا marka xarna sida kan camayna kor ka soo sikino oo kor ka soo sikino geesa ina ka soo qoloocino arabna labada gees ina kala geeno shaqadaas aan qabanayna markooda korsaa lagu soo durkinaya marka koowaad korsi lagu soo durkinaya marka containerkan waxaa tegayna marka meeshiisa asaa ku dhex jirnaa waxaa leenahay containerkan waxaa loo yaqaan margin top aa leenahay 20 pixel markaan dhahno waxaana refresh arta kor ka soo sakaday 20 pixel inta arta soo degfrada si badisid uu soo durkaya 30 meelaan oo imaanaya dana 20 ayaa leenahay wax ka soo fujina kor ko maxaa kale oo ka bedelayna containerkan waxa loo yaqaan padding marka gudaha waa in laga sakiyo hadda daafir meeshan iyo meesha way saaran yihiin way isku dhagan yihiin macnaha waxaan inaan kala durkaan arnaa marka waxaan ku dareynaa marka padding aan ku dareynaa waxaa leenahay padding waxaa leenahay oo 4 jihe ah waxaan ku darnaa 10 oo pixel meel kasto 4 gees waxaa lagu daraa marka refresh oo padding lagu daraa maarta inta 10 waay intan 10 waa korna 10 geeskana 10 okay xogteena hadda isku dhagana marka waxaa soo laabeynaa geesahana soo laabeynaa geesahan hadda waxaa 4 gees waxaa ka dhignaa rondi waa soo qolocinayna geesaha
هذا كان حلو سوق اللوعين geesaha soo qaloocinayna markaas asana waxaan ku daraynaa containerkan anagu dhex jirno hadda css aniga aaleynaha qoranaya bootstrap maa meesha waa css caadi ah qoranaya waxaan ku daraynaa border radius waxa la border radius waxaa leenahay border radius kan waxaa leenahay 5 pixel daa kasii badisid oo sii qalocsamaya refresh aa leenahay halkaas uu soo qalocsamaya haddaa 10 aa dhahno meeshaan 10 aa ka dhigno wuu weynaanayaa هذا سيادة وسوق العاصمة طبعا وحوينا سوق العاصمة اوكي 5 اي اسكرين هاي كسر سوق العاصمة اوكي marka container keen hadda kii hore ayuu ekaaday geesaha ku soo qulacsamay kor ku soo durkay xoolaha si anaga adeegsano css caadi ah dhisnay marka waxaan labadan inaan labada gees kala geeno kan meeshiisa inuu joogo kan laakiin halkaas aan geeno ayaa rabnaa maarta kan iyo ka halkaas inaan kala geeno oo xagga hoosena wax laga durko xaraqintaasna aan ku darno marka waxaa tegaynaa marka meeshan waxaa u laabaynaa rowgeeni waxaa tegaynaa marka rowgeeni aa u laabanaynaa rowgeeni markaa tagno marka waxaa naga rabaa markaa rowgeena qorayno inaan ku darno kow waxaa ku daraynaa rowgeega laftarkiisa waxaa ku daraynaa waxaa loo yaqaan margin top aa marka la isticmaalayo kan saa loo qoraa marka margin top hadda marka caadi u qorayno css waxaa leenahay margin dash top aa qorayna marka laakiin bootstrap la qorayo waxaa la mt aa loo soo gaabiya margin top kadib waxaa leenahay dash aa si leenahay tiradaa sheegaya marka tiradii ayaa sheegaysaa aa qoraysa tiradii ayaa sheegaysaa marka tirada marka waxaa leenahay markaas tusaalahaan 4 aa leenahay markaas margin top 4 waa meeshan oo qaybtan hadda labadan xabo korkooda inay 4 kasoo sigtaan rowgan inuu soo durko waa rowga bisa la durkinaya macnaheedu rowgaas ayaa containerka laga soo durkinayaa 4 oo kor xagga kore okay waxaa imaanaa marka si aan marka u kala labada gees u kala geeno labadooda ayaa ku dhex jiraa marka labadooda waxay ku dhex jiraan column-ka ku dhex jiraan haddaan fiirno column-kan ayay ku dhex jiraan marka column-kan ayaa ku dhex jiro labadan waxaa ku jiro manager user oo containerkan ku dhex jiro iyo buttonka oo containerkan labaad ku jiro labadaas container oo ku jira marka labadan container marka waxa uu sheegaynaa marka column-kan maadaama ay ku dhex jiraan in uu geesaha kala geeyo marka waxaa ku darsanaa glass aa ku darsanaa bootstrap css ka caadi ah waa soo aragnay waxaa la isticmaali jiray waxaa loo yaqaan display flex waxyaabahaas aa la jiray kan sidoo kale dhahna marka oo glass la u wacana aniga koodka ma qorin laakiin glass ayaa u wacana bis waxaa nahay display aa leenahay flex display flex markaa dhahno waa la isku furaya marka macnaheeda hadda maxa blog ay ahaayeen oo is hoos yaaleen haddaa hadda save galeen intaas way isku dhinac dhigayaan maarata way isku dhinac dhigayaan sababta blog ayaa ka saarna markasta default html-ka markasta default wuxuu yahay waxa loo yaqaan block inline mid kasta wuxuu haystaa hal line oo haystaa markasta haddaa fiir marka html waxa aad ku qortid oo waxa aad tegin mid kasta line oo haystaa marka display flex muxuu ka dhigaya waa mid kasta meeshiisa ku ekaysiinaa kan kale wuu soo buuxinaa marka inta ka dhiman haddii marka xog badan ahaa lahaayeen dhan oo containerkaas ku dhex jiro dhan waxay war imaanaya hal safay soo wargeli lahayn marka hadda marka meesha display flex shaqaasay qabanaya marka inay wixii hal ay iskugu keento hal line ay iskugu keento waa display flex waa inay isku dhex jebiso oo leenka laba mid kana line oo haystay kana line oo haystay in labada line la jebiyo intaana ayaa noo qabanaysa display flex oo bootstrap waan waa hagaag marka flex aan dhahnay waxaa rabaa inaan labada gees kala geeno hadda isku dhinageeyeen mid waxaa rabaa geeskan kan jooga maaha kan kale geeskiis kale in la geeyo okay column-ka haddaa fiirina 12 waa 12 macnaheedu waxay tahay shaashadan dhan intaana waa 12 6 iyo 6 ay kala qaadaya marka labada gees kala geeno halkan waxaa u xiran tahay kan halkaas kalena kan kale u xirnaaneen taasa marka 12 kala marka shaashada dhan 12 ayuu ka haystaa marka display flex markaa dhahno waxaa ku daraynaa marka waxa loo yaqaano justify contact alena marka waxaa nahay waxa loo yaqaano justify waxaa nahay dash alenahay content yaalena markaas waxaa nahay isana dash aa kusi daraynaa
between alena inta marka dhahno waa inta caadi siska caadiga qori jirna justify contact space between anagu dhahna waa marka position insaan alla marka justify contact between bisa alena inta marka dhahno safe alena waa fiirina isbedel ka dhacay justify contact space between macnaheedu waxay tahay labada gees inay kala geyso oo containerka wax ku dhex jira waa labada gees la kala geeyo marka shaqadii labaas noo qabat justify contact waxay qabanaysaa inay laba shay labada gees kala geyso ay qabanaysaa maxaa kale align item waxaan ku darasaynaa center in la geeyo align item center dhexda in la geeyo oo rowga dhexdiisa hadda columnkan ay ku jiraan columnkan bartankooda inaan geeno waaye oo kor iyo hoos aan u kala sino waxaa lena marka align aan leenahay waxaa lena marka align waxaa leenahay item center align item center aan lena markaas intaas okay ma la dareemayo maadaama column ay ku dhex jiraan waa centerkeen noo yaala markaas okay qaybta kooda waa kasoo gudubnay waa sameynay maxaa kale markaas columnkaas waa kasoo dhammaanay columnkan waa ka dhammaanay waa sameynay marka waxaa rabnaa marka inaan tablekan hoose haddana aan sameyno tablekan inaan sameyno intaan table ku gudbin waxaa xariiqintaas inaan gelino xariiqintaas inaan gelino xariiqintaas waxaa loo yaqaanaa horizontal loo yaqaanaa waa bootstrap ma html caadi waaye waxaa dhigana marka meeshuu ka xirmo columnkaas ee ku jiraan labadooda hoostooda waxaana markaas waxaa qoraynaa hr aan leenahay intaas bisa waxay gelinaysaa xariiqin marka horizontal line waa haddaad tagno keeni refresh dhahno waa kana xariiqinta way soo gashay mujeedaan laakiin xariiqinta dhibkay keentay xataa way ku dhegantah xariiqintii way ku dhegantah saa marka ugu durkinaynaa xariiqintaas ay ku dhegan tahay okay xariiqinta marka ugu dheganta marka waa kasoo dhex bixinaynaa meeshaas aa dhignay waxaa ka keenaa banaanka rowga aa keenaa rowga kula jirtaa macnaheed intaan hal rowga ku jirin sooma rowgaas banaankiisa waxaa dhiganahay jaarka rowga meel ka baxsan hadda rowga kula jirtaa marka way ku dhegaysaa qasab baa marka rowga banaankiisa keena waakaas marka kuma dhegayso markaas okay marka xariiqinteeni meel fiican inoo taalaa oo kore marka waxaa u gudbaya marka qaybteena kale u gudbaynaa oo tableka marka halka intaas waa ka dhammaanay waa sameynay marka tablekan inta kasoo qaadana marka table u baahannahay inaan soo qaadano tablekan ayaa u baahanaa marka tableka marka haddaa bootstrapka aynu ku laabano waxaa u baahanna wax loo yaqaano inaan ku darsano waxa kale column kale iyo row kale inaan ku darsano waxaa lena meeshaan rowgan dhamaadkiisa tagaynaa iskahubi markasta iskuhubi haddii kale meelaha dhexda wax ku qortid hadhow wixii askay kaa dhexyaacayo waa ku wareeraya markasta rowga markaa ka dhamaatid row kale inaad samaysteen noqoya markaas oo line kale oo cusub inaad samaysto hoos yaal haddaa dhexdiisa dhigtid kanun ku daba feelaya marka hadhow cillada ku qabsanaysa rowga klik c waa ogaanaya marka rowga inaad joogtid rowga hoostiisa markaa imaanaya marka oo xariiqintana kasii hooseyso ayaa imaanaya containerka inaa ka dhex baxin lama rabo containerkaas wadiisana ku dhex jirta laga rabaa row cusub samaysan waxaan leeyahay dot row rowgaas markaa gudihiisa haddana waxaan ku qoraynaa mar labaad column si wadda hadda amar data marna camal column ayaa leenahay oo columnkaas waxaa leenahay lg dash waxaa leenahay 12 column markaas large screen waayo 12 ayuu ka haystaa leenahay marka waxay naga caawinaya marka qaybtan responsive inuu noqdo oo shaashadaha la qabsado intaas markay tahay column iyo row waa samaysan isku dhex jiro columnka gudihiisa maxaan ka qabanayna markaas waxaa dhex gashanaynaa table ayaan soo qaadanaa marka table marka hadda bootstrap ku laabano bootstrap galno meeshaan serjinka waxyaaba badan waxba ayaa ku diyaarsan table qaybtaan aad tegnaa marka qaybtan contact loo yaqaano table ayaa ku dhufanaynaa waa kuwaana marka tableladii koodka bisaa soo koobiyeysanaysa inta table badan oo ku siinaya midka kaa qanciyo
nooci kaa qanciyo ayaa soo qaadanaya waxaana waa table markaas hadaa fiirino waxaan table tableka nashqadiisa ku qanciso ayaa soo qaadanaya waa fahna umaleynayna marka haddaa rabtina caadi u qorana markaas haddaa rabtina markaa xagga kasoo koobiyeysanaysaa oo saana leedahay koobi ayaa leedahay waxay imaanaysa meeshaas oo columnka dhexdiisa ayaa dhex dhigaysaa tableka marka intaan tableka dhex dhigan waxaa samaysanaynaa hal div ayaa samaysanaynaa kadib halkaasaa tableka dhex dhigaynaa kadib marka divteenan waxaa dhex gashanaa glass oo naga caawinaysa tableka inuu responsive noqdo waxaan nahay table aa leenahay tablekaas marka waxaa leenahay waxaa ka dhigtaa responsive ka dhigaa leenahay responsiveka marka hadhow screenka marka lasoo dhaweeyo ama mobile la geeyo automatic wuu soo yaraanaya marka si dabiiciya ayuu isla soo yareynaya responsiveka wuxuu naga caawin marka screenada kala duwan ayuu containerkan aan dhex gelina tableka ayuu naga caawinaya marka okay marka tableka waa kana marka table ayaa dhahnay glasskan ayaa sameynay table ah oo xagga kasoo koobiyeynay waxyaabahan iska kala reebeynaa just haddaan anaga samaysana qorano agsii fiican tablekan waa iska saaraynaa table anaga leenahay aan ka dhex saa ugu wareerin diftaan marka columnkan diftaan aan samaysana oo table responsive ka dhigayo inuu tablekaas responsive noqdo oo shaashada la yaraado oo noo yareynayo ayaa dhex gashanay waxaa leenahay marka table ayaa leenahay tablekaas enter aa leenahay intaa tableka gudihi gelin waxaa leenahay glass aa ku darsanaynaa glasska marka waxyaabaha qorin waxay tahay kow table aa leenahay aye maxaa kaloo ku daraynaa table kale ayaa leenahay dash aa leenahay waxaa loo yaqaano distribute ayaa leenahay table distribute ayaa leenahay distribute marka wuxuu naga caawinaya kalarro u sameynaa marka line kuwaad kalar kale line ku xiga kalar kale line kale ku xiga kalar kale si akhriska u fudaado waxaa leenahay distribute ayaa leenahay marka distribute markaa dhahno waxaa leenahay table kale ayaa leenahay oo glass kale u wacayna oo loo yaqaano border aa leenahay borderate tableka waxaa leenahay border u samee aa leenahay wareeg u samee oo xariqmo u kala samee aa leenahay kadib waxaa leenahay textiga tablekaas waxaa leenahay center hadhowaad tusaa waxyaabaha mid kasta shaqadu qabanayo marka arno tableki intaas markaa tableka aa samaysan table gudihiisa maxaa laga rabaa marka xogta inaan gelino tableka gudihiisa markaa gelino waxaa laga rabaa xogta inaan gelino xogta aan gelinayna marka maxay tahay kow tableka wuxuu leeyahay waxa loo yaqaana head ayaa lahaa table head ayaa lahaa hadaa meesha kusoo laabano meeshaas kore ad name email ma isbedelayso waa headka waa hadaa fiirna kalarka xadee ka dugan tahay waa madow waa headka tableka uu leeyahay wixii oo tablekan waxa ku jira si loo ogaado magacaasa lagu garanaya marka table headkaa samaysanayna marka hore marka table gudihiisa aan ku jirno waxaa samaysanayna marka table headkaa samaysanayna waxaa leenahay t head ayaa qoraynaa waa enter aa leenahay dhexdiisa waxaa ku dhex qoraynaa tr ayaa leenahay table row ayaa leenahay waxaa dhex gelinaa table row haddana waxaa dhex gelinaynaa th oo ah table head halkaas waxaa ku dhex qoraynaa marka kow waxaa leenahay id ayaa leenahay marka waxaa leenahay waa koobiyeynaa inta waxaa leenahay haddana name waxaa leenahay waa koobiyeynaa haddana kanon kale waxaa gelinaynaa sidoo kale email waa koobiyeynaa kan kale waxaa dhex gelinaynaa phone waa koobiyeynaa kan kale waxaa sii dhex gelinaynaa waxa loo yaqaano gender waa koobiyeynaa mid kale kasii sameynaynaa waxaana marka u dambeeye waaye action button waaye actionski buttonska safe aa leenahay marka hadii safe markaa dhan waa fiirina xogtan in lagu soo oo table oo noo yeesho okay safe waa kana marka tablekeena waa kan halkaa sameynay waxyaabaha data aan ku dardarayna marka distributeki waxyaabahaas waa xariiqmahan inuu yeelo oo kala xariiqmahaas u kala sameeyo ayay ahayd galaas markaa data ku darsanaynay okay table headkeena waa sameynay
meesha xogta gelaysa ayaa samaysayna marka meesha xogta gelaysa ayaa samaysayna waxaa kasoo dhex bixina marka headka kasoo dhex bixina meesha xogta gelaysana waxaa loo yaqaanaa t body table body aa loo yaqaanaa waa body gudihii xogta gelaysa waa table body ayaa gelayna marka table body maxaa sanaysa waxaa ku qoraynaa tr ayaa ku qoraynaa table read ayaa ku qoraynaa okay table row waaye table rowga jiifka maxaa dhex gala hadda kan headkan hal row ku jiro oo xogtan hayso haddaan row kale ku darna laba xaba is hoos imaanaysa macnaheedu marka kana body waaye hal row bisaa qornay rowga koowaad maxaa gelaya waa macnaheeda marka xogta qaybtan kii hore wuxuu ahaa head oo ah sooma kan waxaa ka dhiganaa td aa ka dhiganaa table data aa ka dhiganaa qaybtan waxaa waaye waa head waa qoraal far waaweyn oo madax sare kan waxaa datadii waa labadaas u qaldin baadiga waxaa dhex galo td aa dhex gasho headkan waxaa dhex galo th oo head ayaa dhex gashay labadaas isku qaldin marka waxaa leenahay datadii aa gelinaynaa hal data oo sambal aa gelinaynaa saa u aragno waxaa leenahay number kow ayaa gelaysa qaybta koowaad oo ad waaye ad aa ku aadayso hadhow waxaa ka labaad maxaa gelaayo waxaa iska leenahay axmed muuse magacaas ka hadhow galaya qaybta nameka ku aadaysa waaye ka labaad hadhow xogtan markaa database sameyn waxaa inaan qorno ma baahno automatic variable samaysanayna oo database ku xiran automatic aa loo geli doonaa for loop soo celinayso databaseka xogteeda laakiin hadda sambal ahaan wala bis xogtan intaas sambal ahaan waa si tablekan soo muuqanayo waa aragna bis emailka waaye at gmail alanahay .com qaybs emailka waaye waa koobiyeyna waxaa dhex gashaynaa asagana numberkii number asaga taabanayna qaybtan kale waxay qaabilsan tahay genderkii waxaa hal cabas kasii gelinaa waxaa leenahay mail okay midka ugu dambeeyo actionka waaye actionka laakiin data ma gelinayno batanaa geli doonaa marka waa save garaynaa refresh inaa xogtaa soo gashay mujido waa ad xogtaan saasay usoo galay marka hadda marka xogtaan anaga databaseka ayaa laga keeni doonaa oo for loop ku xirno databaseka xogtooda oo loop ahaan usoo geli doonaa meeshaan so automatic wixii inta tablekaas ku jirto oo dhan ayaa halkan lagu soo qaadi doonaa waa arki doonaa marka qaybta aan sameyno databaseka hadda designka bisa ka gudbayna sii diyaarsayna okay waxaa gudbaya marka qaybtan oo ah ayagana buttoniska meeshaan action button waxaa laga rabaa laba button oo ah edit oo hadhow xogtan laga bedelayo iyo delete xogta laga saarayo marka kana dhex gashayna marka td-gan ayaa labaas option laba shaqaa dhex gashayna marka waxaana markaas waxaanahay hreftaasa gelinaynaa halkan hashaas kasii gelinaynaa kadib gudaheeda maxaa ku qoraynaa markaas galaasa ku qoraynaa intaa galaas ku qor horto waxaa iskasii gelinaa meeshaan wax loo yaqaano edit waxaanahay edit aa leenahay waa koobiyeynaa kana waxaa leenahay delete si hadda u aragno qurqurxinta markaa aragna aa gelinaa maarta waa edit iyo delete laakiin waxaa rabaa inaan qurxino oo saan camal ka dhigno edit delete button camal inaan ka dhigno okay saa uga dhigaynaa aa kusoo laabaynaa markaas hadhow kana koobiyeysanayna kan kale horta kana qurxinaynaa waxaa meeshan galaasa ku abuuraynaa galaas bootstrap wacanaynaa waxaa leenahay btn button ka dhigalayna kow haddana buttonkaas waxaa kasii dhigaysaa warning waxa loo yaqaan warning waa kalar guduud oo casaan digniin camal u ah warning ayaa leenahay marka warning aa dhahnay waxaa leenahay btn kan waxaa kasii dhigaysaa small ayaa ka dhigaynaa markaas intaskaasaa fireynaa okay maarta waa laga dhigay marka butankii waa laga dhigay kana hore kalarkiisii waa u egyahay okay kan kale kanaa koobiyeyna markaas hal meel aa ka bedelaynaa bis oo kalarka ah marka ka bedel meeshan delete aa leenahay delete aa leenahay
halkan sidoo kale marka delete dhahno halkan kalena waxaa ka bedeleynaa meeshan one-ka waxaa ka dhigaynaa waxa loo yaqaano danger oo digniin ah midab digniin ka dhigana marka okay waa soo geleynaa waa kana marka successful labadeeni waa soo gelina markaas okay labaha batan hadhow shaqaasi qabanaya edit marka loo forma soo boodi doono xogtaan ah waa waxbaa laga bedeli doonaa safe xogta isbedeli doonta hadhow marka update la sameynayo waa delete hadii la taabtane rowgana baxaayo xogta ku aadan waa hagaag markaas intaas markay tahay rowgana dhowr mar soo koobiyeyna saa u aragno xog table ahaanteena okay ana xog badan gelin camal ka dhigayna marka waa kana markaas saasoo kale kusoo baxaya tablekeena hada marka xogaha saas usoo geli doonaa si taxanaha hoos ilaa hoos u imaan doonaa tablekeena xogtay ku xirnaa doontaa soo gelayso marka qaybteeni hadda waxaa ka dhamaanay oo ahaa qaybtii oo tableki ayaa ka dhamaanay waxaan u gudbaynaa marka qaybta batanka haddii la taabto oo soo boodaya modelkii xogtan laga soo buuxi lahaa sida kan hadda oo kale qaybtana sameynayna marka oo xogtii meesha laga soo xariinaya ee tahay